السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا أد نوغا برتين با waxaan noo bilaabatay wacyigelinteennii iyo arrimo aan doonayno inaan uga hadalno arrimaha ka soo cusboonaaday balad xaawo oo ay Kenyaatu ku dhul balaarsanayaan dalka Soomaaliya tabardarrida iyo maarag kala daadsanaanta muddada badan soo haysa darteed inay badii marka ay qaateen ay si kasto ay maaragta ugu guulaysan karaan inay badda xalaaleystaan inay dhulkii ku jaangooyaan iyagoo doonaya ayaa maaragta soo cusboonaatay waana aad iyo aad baan ugu boorinaynaa uguna mahadnaqaynaa dadka u dhashay baladka oo jooga sida ay uga hortageen oo ay maaragtay u soo hortaageen in dhulkoodii maaragta lagu tagrifasho ayagoo markaas awoodooda aysan badnayn laakiin muujiyay geesinimo iyo maaragtay inay kala hortageen Kenyaatigii baangada iyo dhagxaan sheegaysana inaysan dhalkood ilaa ay dhintaan aan la qaadanayn oo ay dagaalkaas galeen ayagoo aad ugu mahadsan marka taasina ay faa'iido weyn oo ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay ay tahay runtii meel walbana haddaan saas oo kale aan uga dagaalano oo aan isu garab istaagno waa waxa kaliya oo macnaha aan adduunka uga bixi karnay dhibaatadii 30 sano soo daashatay ku dhawaadka taasi waa midda arrinta balad xaawo waana la garan karaayo ummad badanna waa ka hadashay waa midda ay doonayaan inay si macnaha maxay ahayto habaysan oo maaragtay sharciyaysan ay uga dhigtaan badii si badii u sharciyaysan lahayn ayay kulay xuduudda u soo galeen doonayaan dhul ahaan inay ku aadiyaan dhulkii ay maraysay baddu si ay dhul ahaan ugu jaangooyaan ayay hadda xuduudii u balaarsanayaan waxaan ka codsanaynaa dawladdu inay ka hadasho Kenya faragelinta iyo dhul balaarsiga ay ku hayso Soomaaliya tabarteenu meesha doonto hal ekaato laakiin inaanan ka yeelaynin horta in loo macna loona sheego dadweynaheena waaba tuseen runtii meesha deganaa khayr Allah siiyo dawladduna inay ka hadashaan codsanaynaa oo maaragtay laga hadla arrintaas oo aan la dhayalsan waxaa kaloo iyadana soo cusboonaatay arrinta kaloo iyadana laftigeedu dhinaca waqooyi galbeed oo xuutiyiintu la leeyahay ay ku hanjabayaan baraha bulshada laga arkay intay hanjabaadaasi ay wax ka leegiya ay wax ka jiraan aan u malaynayo maxaa yeelay waxaa la garan karaa in danaha ay imaaraad iyo sacuudiga isbahaysigu meeshan ka leeyahay inay tahay inay uga duulaan oo dagaal ka dhaxeeya dadkaas inay uga duulaan inay tahay way iska caddahay maadaama iska caddahana waxaa meesha ka muuqata hadda ninkii gurigaaga mar haddii duulaanka laga qaado jawaabta aad helaysa waad garan kartaa waa lagu jawaabayaa annagu dad marka jawaabahaas ka bixi kara horta ma nahay Soomaali haddaan nahay ama waqooyi hadda ganaadeen ama koonfur degan dad jawaabahaas xilligan ka bixi kara oo dagaalkaa geli kara horta ma nahay maxaase dagaalkaasna geliyey oo annagiyo aan kabsan oo anaga kala maqan nahay waana ciidan haysan nagu filan oo istaraatiijigaas oo dhanba kama aanan bixin dhulkayga baa maqan kayga baa baxar ku jiro liiqliiqan haye in macnaha inta yarta maanta wax Soomaaliya meesha ugu sarreyso oo ugu macna la oran kara nabadgelyo yay dhowr ayaan haysteen waa Hargeysa iyo Burco la oran kara marka Hargeysa iyo Burco miyaa marka loo soo maalatay loo soo horseedaya qax iyo problem hor leh Hargeysa iyo Burco Soomaaliya oo dhan baa ku nool maamulka ama xumaada ama samaado kale faa'iido badan baa Soomaalidu ku qabtaa waa dhul Soomaaliyeed waa dhul lagu soo hirto waa dhul runtii marka laga hadlo muddo badan lagu soo hiranayo 20 sano dambaba dhulka lala aaday ama caruuraha lala aadayay ama ganacsiga lala aadayay ama Soomaali ahaanba macnaha nafta uga jirtaba waa halka inta badan iyo Puntland marka inaan macnaha saldhig dagaal u noqono waa wax laga fiican yahay mana doonayna shacabka maxay hayto waqooyi galbeed ama Somaliland inay soo wajahdo dhibaato noocaas waa wax Ilaahay laga magan galo maxaa yeelay wixii ay gaar anagana waa nagaarayaan waxa walba la isdhaho la iska qaylqayliyo halka xaqiiqdu wixii gaara waa nagaarayaan wixii ka lumaana waa naga lumayaan wixii u hagaagana waa noo wada hagaagaan marka sidaa daraadeed shacabka Soomaaliland iyo dhalinyarada waxgaradka ama aqoon-yahaninta runtii waa inay xukuumadooda la xisaabtamaan waa inay arrimahan wax laga qabto aan la dhayarsan oo intii maarta ama xuutigu kugu soo tuuro oo gantaal kugu dhaco aan la sugin ee laga hortagaa faragelintan dadkaana saldhigan ay naga macnaha waqooyi ay macnaha doonayaan inay ka dhigtaan waa in saldhigan laga joojiyaa waa inaysan meeshaas dagaal
completely ba aan lagu qaadin oo macnaha aan dagaalkaas loo ogolaanin inay saldhig ka samaystaan berbere iyo maaragtay gobolada waqooyi aysan ka samaysan qoladan la yiraahdo maaragtay isbahaysigu oo imaaraadku iyo hogaaminayaan sacuudigu waa in shacabku ka dhiidiyaa waa dhulkoodii dhibka ku dhacayaan iyagu ku dhacaya wixii ku dhaca iyagay ku dhacayaan cid u magdhabaysa iyo cid ogna male runta marka laga hadlo cajalada aan daawanayo lahaa sunni baan nahay imaaraadkii sacuudigan anagu maaragta qaabilsanahay kolley dowladdii kulmiye wasiir ka mid ahaa wuxuu idin taraya berito ma laha runta marka laga hadlo maantaba basiir ma laha maantaba wasiir ma aha wuxuu shalay yiri iyo wuxuu haleeyay wuu ka tegay idinka inay dhibku idinku dhacaya iyaga asagoo kuma dhacayo already wuxuu qaadan lahaa waa qaatay meeshuu aadi lahaana waa aadaya ninkaas marka shacabka reer somaliland waxaan ka codsanaynaa inay macnaha dowladooda iyo maamulkooda la xisaabtamaan waxyaabaha khatarta gelin karana inay ka feejignaadaan iskana qabtaan inta goor tahay oo ay ka hortagaan waa lagaba maarmaan taasina waa waxaan ka leeyahay maxay tahay arrintii ahayd waxaan ka leeyahay waqooyi galbeed oo macnaha meeshaan berbero oo saldhiga imaaraadka iyo isbahaysigu ay ka samaysanayeen midda kale waxaa weeye sideeni caadiga ahayd waa tii iska wacyigelinta ahayd oo ku saabsanayd qabyaaladda dadka soo dilatay oo ay aamineen oo diintii uga baxeen oo nasabnimadii uga baxeen oo dalkoodii u gateen oo diintoodii u dhaafeen oo macnaha noqotay wax ragaadiyey oo waxaa la yaab leh qofkii macnaha dowlad hala samaysta haddii la yidhahdo shuruuc bay dowladda iyo constitution bay samaystaan hay-aday samaystaan kala dambayntii sharciga yuu qabanaya oo su-aasha la isweydiiyey yuu qabanaya soo qofkii qaldamo maaha inuu qabto marka kii loo soo qabta haddii la yidhahdo qabiil lagu difaaco oo yaa marka qola aysan sharcigu qaban ba iyo qola ay qabata miyaan ka samaysannahay mise macnaheedu waxa weeye qabyaaladu heerkaasay na gaarsiiso qarannimadii bay duminaysaa qabyaalad hadday qaran noo dhisayso 27 sano waa kusoo jirnay maalinkii qabyaalad ay wax naga hadlaysana waa wada garanayna waa maalinkii la riday dowladdii dhexe ee maxamed siyaad barre allaha u naxariista kaas dad waa hayay kadibna lagu bedelay reer hebel ha la ceyrsho maxay reer hebel u ceyrsanahayeen reer hebel way ka mid yihiin way dhaleen guryahooday joogaan way la dhasheen caqligii ugu xumaa oo abid ummaddaas maanaa ka halaabay bay ahayd waa wax cajiib ah ummad dhan oo inta saastir isqaban weydo iska qaban weydo oo macnaa isku raacay baa cajiib ahayd waa dad macnaha inay masiibadan iyo halaagan maraan ayaa xog marayd ma kala maarmaan ma kala maqnaan karaan kii maanta kula ceyriseen markuu tago labada isku soo hartay oo isdilahayaan oo ta isku dhigeen waa la ogaa maanta mid baa wuxuu rabaa marka kii inuu ugu habar wacdo intuu waxaleeyey ma garad wuxuu kii shalay u dilayo rabaa inuu habar wacdo waa khalad macnaa qabyaaladu fura waxa weeye waa fura baasoo lagu shaqaysto oo siyaasi ku shaqaysto iyo dad kooxoo iyagu dan leeyaha ku shaqaysta marka taasina macnaheedu waxa weeye dadka ama oday ha noqo odayaashii muddadan badan waxaa soo baxday sidaan garanayno maadaama waddanku maana dowlad la-aan muddo badan ku raagay abaaro badan ku dhaceen dhaqaalo la-aan iyo macnaa baahsan soo gashay waxay noqotay dadka inay damiirkii wanaagsanaa ay intooda badan ka tagaan oo qofkii maalinkaa shaaha u shuba ama waqadada maaragtay ka bixiya ay u hoggaansamaan wuxuu doona naartiba ha u wado hadduu rabo inay u hoggaansamaan bay kaliftay qabyaaladu iyo gaajadii iyo dowlad la-aantii kala dambayntay halkaasay kaliftay marka maadaama maanta aada hesheen dowlad idiin adeegaysoon idinka adeeganayn oo corruptionka la dagaalamaysa oo dalkiina badbaadinaysa oo dadkiina badbaadinaysa oo adduun weynaha xabsiyada idinka soo guraysa oo shaqo abuur idiin samaysa dhalinyaro ay wixii idin waalaasoo waali maaha waxaad siyaasi tuug ah oo asagu markaa dan gaara wato oon idinka idiin daraynayn ninkaas ninka uu qoriga u qaado oo uu ku duulahayo oo hadda waa ka wiilayaroo freshaa nooga dhintay cabdiraxmaan cabdishakuur oo ahayd dambiilo qaran buu ahaa dambi qaran baa loo haystaa ma aha dambi qolo gaara dambigeed looma haysta qabiil looma haysto dambi qaran baa loo haystaa waa soomaaliya oo dhan baa u dhan dambigaas uu ka galay marka wuxuu xaq u lahaa in laydhaho ha lay cafiyo war ha lay cafiyo danuub baan gallay war halla hana laga ahaado war hana la cafiyo wixii dambiga kooxdeeni qaran maxay tahay xaraash qaran oo dambigaan gallay nimayow raalle soomaaliya hana la cafiyo wixii aan soo waddanka aan ka qaban karo wanaagana waa nala garab taagan lahaa dowladda meeshay ka dhihi lahaayeen xaraashka uu sii badiyay iyo imaaraad baa lala xirtay iyo carab iyo nin aan mar walba doonayn annaga danahayaga inuu ka shaqeeyo muslim iyo waxaan isla nahaa la yidhi ay rooqoo yidhahdeen iyo sunni iyo islaam haddaan isla nahay aawa 30 sano in abaabaayna maxay noogu qaban waayeen
gabdhaha iyagana inta fuulaan ee qadaamad ka dhigtaan weliba dilaan bay say doonaan ka yeelaan wiilasheedana waa tarxiilaan inta xoolaheed waxa la shaqeeyaan weliba ka dhacaan ayaa weliba tarxiilaan aw islaamnimadii iyo wixii ya sunnigii naga dhaxeeyay awla maxaa loo waayay ma maanta soo dhalanaya sunnigu ma maanta cusub yahay ama sunni ha noqdaan ama shiica ha noqdaan annaga hana daayaan waxba nooguma yaalaan dowlad islaam ah oo maanta aan farta ku fiiqan karno wax la taaban kara maanta noo qabatay oo waqti macnaha xasaasiya noo soo gurmatay waa turki haddaan jasaar la ahayn anigu xamar ma degani xamarna ma joogo iimana soo gurman laakiin mid aniga ila mid ahay u gurmatay qofka bini aadanka waa inuu dareemaa qaar baa wuxuu ku leeyahay xamar bay u gurmatay oo xamar da u gurmatay xamar xaruntii soomaaliya wey ilaahay baa ka dhigay dhib iyo dheef xamar baa la tegaya waa sax dowladdeedu waa casimadii soomaaliya dowladdii soo aadan xamar bay imaanaysaa waa sax sababtoo ah dhiil baa la yidhi guntaa laga unkaa xamar baana lagu yaqaanay soomaaliya xarunteedii xamar baa lagu yaqaanay dadkan kala qabiilooba kala turki idinma aqoon inaad waa hore iscunteen oo aad kala qoloba meel deganta isuma galaanta iyagoo idinma yaqaanaan dal soomaaliya islaam ay usoo gurbadeen waxayna yimaadeen magaalo madaxdii dhibaatadii baahsanay xilli xun oo aan inaba caadi ahayn ayay turkigu maaragta ay soomaaliya gacan soo garab istaagtay welina way garab taagan tahay wax la taaban karayna nagu garab taagan oo indhuhu isha macallin tahay oo isha arki karto wax la arki karo la taaban karaa qofka la rabo moogta hadal lama rabo iyo dad diimo fara badan oo nagu annaga nagu faafiyey waddankayagiyo caruurahayagii al-shabaab iyo 12 weji noo yeelay ma doo taa carab intaasay ka shaqaysaa maxay kaloo ka shaqaysaa nin yaro wadaada usoo dhiibto xoogaa lacaga oo fikir tiraad carruurtan ku abuur oo meel uga furto oo mishaar ku siisa maahan maxay kaloo soomaaliya u qabatay wayna kala dileen 12 fakar iyagu nooga yimid 12 firqa iyadu nooga yimid lagooyo waxaan ahayna naguma taran runta marka laga hadlahayo soomaaliya markaad meelaha dhoofta dadka soomaaliya baasaboorkooda wata sidii eygiiba meel lagu horaa transadka markaa maraha ku arki jiray sidii transad waxaa lagu horaya sidii eygii baa loola dhaqmayaa bini aadan inaysan ahayn baa loo arka ma maanta marka aan isku cid noqonay ma maanta wax noogu yaalaan marka damiir laa waxa u adeegaya kuwaas wallaahi wa billaahi tallaahi kan dadka u xiga inuu qoorta soo qabto weeye kan dadka u xiga inuu xabsiga geeyo weeye kan dadka u xiga inuu qoorta ka gooyo weeye inuusan macnaha ahayn wax macnaha qabiil ku dhisan inaysan taasi ahayn marka dadka oo macnaha midda kale waxa la yaab leh qabyaaladu wayna dilatay markaasay waxayna gaarsiisay heer xun oo islaamnimada uga baxnay oo ilaahay ka cabsada oo diintiina ku soo laabta oo dadka xun qaran maxaa hay'adaha dastuuriga iyo hay'adaha kala dambeynta iyo sharciga maxaa loo sameeyay wadan kaste xabsiga waxaa ka buuxa dadka u dhashay siyaasigoodii baa ku jira ganacsatadoodii baa ku jira shaqaalahoodii rayidkii baa ku jira mid wax layo ku xadgud baa ku jira of course ciduu doono darajadu la raan hala haado annagu marka kii siyaasi oo 2 maalmood meel istaagay dambi ma galo dambi lama noqon karo ma qabto sharcigu ya ma qabto miya fakarkaas xun iska ilooba kuwa meel madaxweyne qaar baa waxay lahaayeen madaxweyne cabdishakuur bay madaxweyne leeyihiin waa dad jiran bal maxay madaxweyne xagga ugu ahaa madaxweynaha waa la yaqaan dalkan madaxweyne oo dhanna nooma sinne madaxweynihii noo shaqeeyay ra'iisul wasaarihii noo shaqeeya annaga inagu kuwaasaa naqaanaa cid ay doonaan ha noqdaan la kuwa maanta tiimka jooga ishaa macallina ayaa noo shaqaynaya si wanaagsan oo hufan oo hadday maaliyad tahay oo hadday liidnabasha iyo hadday cadaalad tahay iyo hadday xaq garsoor tahay iyo hadday tahayba macnaha transparency macnaha si macnaha furan oo cadaalad ku dheehan tahay dowladdaanaan ka aragnaa kuwii horeba waxaanoo kalaa joogay bay waxaanay macnaha qoorta u laalaadinayeen wax kuwii hore reebana way noqon lahaayeen dowlad fiican waxaanay laaluushahayeen laaluush maanta waa dhammaaday dadkii maaragtaa baarlamaankan maxay ahayto mooshinka usoo meeshan ka soo galay si corruptionka kusoo galay oo lacagaha maaragta maxay tahay xambaarka kusoo galay iyo deymaha soo qaatay oo inay guryuhu qabyada ka yihiin oo maaragtaa dream inay mooshin wax ka dhisaan horta kuwaasa harta naga buuxa waana kuwa loo baahan yahay la iska qabto shacabka ay ka yimaadeen nin walba dhalinyaro walba waxaan ka doonaynaa kuna boorinaynaa inay ku daba dhagaan qofka u ah baarlamaaniga oo baarlamaanka ugu jiro xildhibaanka u ah inay qolo walba dabada qabsato dhalinyaradooda aqoon-yahanka oo wadaniyeynka inay dabada qabsantaan lana xisaabtamaan dowladda hadday dhinac uga bayraanna waa inay iska xasilaan oo mid kale la keenaa ka nasiib kana saar waa la saaraya wixii xun xilligan waxa qodxaha badan waxa dulligaha nagu badan dadka corruptionka nagu badan waa in la siiba maamul goboleedyada koow ay ka yihiin koow waan laba ahayn bay ka yihiin xildhibaanada iyo marka dowladii oo dhan waxa in shacabku dagaalamo ma ahane
qodxa badan baa ku jira dowladda baarlamaankii bay ka buuxaan maamul goboleedii bay ka buuxaan dowladdii bay marka lagu qabanayaan waxay isleeyihiin hadday hore u socoto arki maysaan mar dambe fursaddaas soo marmaysa wayna og yihiin shacabka ama especially khaasatan dhalinyaradu ha u istaageen dowladdooda ha garab istaageen dowladdooda ha la shaqeeyeen dowladdooda waa mustaqbalkoodii farmaajo iyo qayre iyo taabid iyo bayle iyo inta la midkaaba shalay yimaadeen barrina waa tegayaan guri walba guri buu ka soo baxay magac iyo wanaag iyo horumar bay rabaan inay idinkaga tagaan waxay tahriibka inay idinkaga gargaaraan bay rabaan xabsiyada inay idinka soo guraan bay rabaan dalkiinay rabaan inay khayraadkiisa idinkaga faa'iideeyaan oo ummadda adduunka idiin soo jeediyaan oo idiin maalgeliyaan taa macnaheedu waxa faa'iidada qaadanaya dhalinyaro waa idinka dhalinyaro waxa faa'iidada helaya waa idinka marka aqow isku dhufta asaga u dhigtiya haddaad idinku dowladda xagsan weydaan oo bahalladan iyo horarkan tirada ka batay aad ka ceshan weydaan hadda idinku baa hoogayo ba'aya badahana idinkaa ku dhammaan magafa idinku idan biilan idinkaa shaqa la'aan meel walba uu hoogi xabisyada dowladda iyo bayrad idinkaa meel walba idinku qabsan markii nafta idin qabato dantiina aqooda dhalinyaro qabyaalad ka waantooba gacmaha isqabsada raas casayr ilaa raas kambooni yaan dhexdiina la gelin yaan sakiin dhexdiina marin dantiina fahma qabyaalad maskaxda inta dejisaan waxay keentaa bala faa'iida bal waayo qabyaalad waxa ku faa'iida shacabka Soomaaliyeed maximum waxaan oran karnaa 100% baa kaga faa'iiday qabyaalad iyo burbur 100% baa ku faa'iiday marka 99% ma waxa uu baabiinaysan 100% ma idin ka baabiinaya 100% ka faa'iiday miyaa 99% kala qasaaray dhibaatada haysata idin ka baabiinaya oo raba inuu meesha idin ku celiyaan 1% miyaa meesha idin ku celinaya cid kale oo ka faa'iiday ma jirto Soomaaliya qabyaalad gobolkay doonaan ha joogan qoladay doonaan ha u dhasheen 100% baa faa'iiday 100% halkaas miyaa doonaysaan inuu bartiisi idin ku celiyo isagu faa'iidadiisa ilaalsado 100% halkaas faa'iido u ilaalsanaya oo qabyaalad faa'iido ugu jirta 99 kale ma waxay u baaba'sanaanay ma halkaas idin ka adkaan kara halka miyaa idin ka adag oo mana qorti u roganaysaan iska qabta qabiil walba u xisaabtama habar gidra xisaabtanto meeqa haysata meeqan waxla inta kaliya eega abgaar sidoo kale bareexan sidoo kale majeertaan sidoo kale habar gidra cid walba sidoo kale dilkaliya mirifle aaway jareer weyn kullin fiirsan yaa ka faa'iiday marka dhowr qof oo ayagu marta ama bililqa haysta ama shisheeye u shaqeynaya ama al-shabaab u shaqeynaya yayna waalin laba kooxood baa meeshan weli aad ugu badan waa qolada al-shabaab u shaqeynaya oo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba al-shabaab u shaqeeya oo xisbi ah iyo qolada u shaqeysa maaragtay shisheeyaha iyo imaaraadka labadaasaan wali xoog nugu leh labadaa marka sidaad dhalinyaro ula dagaalami lahaydeen sidaa iskaga qaban lahaydeen sidaa dowladdiina siday horukaceedu idinka u shaqeyn lahayd macnaha fursad waa yare macnaha internetka yare loading samaynayo oo go-ay marka xaawa ciid saaxiibaday iyo saare cabdi walaashay labadiina waa idin salaamay waa run qabyaalo cidna kuma faa'iidin cid ku faa'iiday 100% baa nooga faa'iiday oo macnaha waana halka weli Soomaaliya meesha inay ku celiyaan doonaya waa kuwa doonaya hantidii dadweynaha haystaan inaan laga qaadin waa kuwa doodaya maaragtay hantidii shacabka oo ku habsadeen inaan laga qaadin iyo beerihii dowladda iyo hantidii dad kuwaasaa ku dhagan marka waa 100% 99 kale wax u danaynaya male wax u danaynaya iyo wax dan kale male qabyaalad waa tii meelshan way Soomaaliya oo dhan dhigtay waa tii abaaraha aragtay iyo rafaadka aragtay Soomaaliya gelisay waa tii macnaha xabsiyada ka buuxisay waa tii tahriibka haday qabyaalad faa'iido leedahay maanta soo dhalinyaro badda ku daadan lahayd haday dawlad maanta jir lahayd oo qabyaalad marka qabyaalad faa'iido ma leh ma lagu dhargo ma lagu hakado ma lagu joogo ma waayo cidda tahriib ka badbaaday waayo qabiilka ka badbaaday Soomaaliland baa waxay qolada reeshi isaxaaq baa nabad iyo dawladnimo ayaamahan ku faanayay tahriibkana dhalinyaradooda u badan maxaa yeelay cunugu markuu soo kaco jaamacad ku habar ku soo tibi tacbeesha meel iyo wuxuu ka qabtay shaqo abuur ma leh afar nin baa meesha waa mujaahid baa nahay annaga maaragtay kaadada u soo cabnay baa meesha lagu haystaa gabigeedaba kana saarka afartaas isku balbadasha dadkii jiilka ahaa oo ummadan u soo kacay wax xal ah iyo wax loo sameeyay mal oo wanaaga badda waxa ku dhintay iyaga u badan kuwa kalena warkooda badaa marka qabyaalad waa midaas waad la soo carray waa ka soo dabcay haddaad mid ku soo cayrsho anaga mid baa la soo cayrshay kuwii kale naga daba ordaya yimid oo waad soo cayrsay maxay nooga soo daba ordaysaan
qabyaaladu macnaha meel la kuma dhamaato macnaha faa'iido ma leh maxay lagama taajiro oo macnaha tay nabad laguma nabad galo kan boqolkiiba 10 halka faa'iiday xataa wadna kurkur buu ku noolyaa kuna ganacsada wadna kurkur macaawad dhimad bariba dhimad macaawad dhimad intaas ay noloshiisa ku xiran tahay walba cunto ku seexda walba ku soo kaca lagama yaabo inuu istirax ku soo kaco macnaha marka qabyaaladu waa mid heerkaas leh ma bariba reehbel ku dili ma bariba reehbel ku dili shil haduu leeyahay waa wanted because waa dad gaajeysan kad kan wixiga kaga taqalusay oo bari wax u diido marka qabyaaladu faa'iido ma leh qolana ma leh qoysna ma leh waa ma dhamaato waa baxbay si aada taas kaga biskooda dhalinyarada Soomaaliyeed taa qabyaaladka biskooda qaar waxaad arkaysaa hadda marka hebel wax laga maxay hebel baa qaldan la yiraahdo toonba soo safarayso hebel baa qaldan hebel ma qaldana tuug yahay baraha bulshada tood ma soo yaacaysa waxa ay ku qabaan xoogaa lacag oo la siiyay wax kale ma ahan kalsooni ayaysan waligood dawlad ma arag wax kale ma ahan waligood baysan dawlad arag marka qofka haduu soo dawlad arag waxa dawladda haba ma yaqaano kalsoonida ka maqan dhibanna wuxuu ku yahay tuugaan dhibanna ku yahay lacagta soo xogaaga soo meelaha soo ka soo dhacay oo maaragtay dhibanna wuxuu ku yahay xogaagaas uu siinayo dhibanna ku yahay halkaas marka wuxuu afuufaya beenta iyo kaafaankiisu afuufaya ma garad inta kale oo dhan bi cilad u yeelahaya laakiin ma aamisana wuxuusan aamisanayn ama dalkaagi iyo dadkaagi adigoo jecel oo wanaag u qabtay adna aad ka faa'iido oo kaba dhargi kartaa taasaan aaminsanayn taasaysa aaminsanayn waxaan ka codsanaynaa waan u sheegaynaa waa ka yawaaya aragsanaa waa idin dhalay habarin baa idinahay dowlad nabadaan soo joognay annaga idinka ballan qaadayna dowladdiina haddaad taageertaan ood garab istaagtaan inaad weliba la idiin shaqayn doonaa aakhirka sidaad ku socotaan aakhirka Soomaaliya dhalinyarada dambe oo hadday calfadaan waa la idiin shaqayn doonaa ilmihiinana waa loo shaqayn doonaa imaaraadkan dhalinyaradood qof shaqeeya kuma jira waxa uu shaqeeyo dhan waa ajaanib waa Pakistan waa Hindi waa Philippine waa inay ummad Ilaahay ba u soo shaqo tagtay ayagu wayna jixeen cunugu markuu dhasho akoon ba lacag ugu dhacdaa by the time uu macnaha jaamacadiisa waa bayt waa la bixiyay gurigiisa waa la bixiyay maalinku guursanay gurigiisa waxiisa aroosiisa waxiisa waa paid lacag ba daaqad uga soo dhacda oo loo kaydiya cunugooda markuu dhasho imaaraadiga inta iyo ka badan baa anaguna waa gaari karnaa khayraadka Ilaahay dalkayga siiyana inta iyo ka badan xawi aadan adduunka dhan noo shaqatay kara aawa fursad ar qabyaalad waxaan iska dhigin kara wax kale naga maqanay wax kale oo naga maqan oo naga hortaagan oo qabyaalad ahayn ma jirto hebel oo xun lama hadli karo wadanka laga ma qaban karo ha soo gado barigii buu gado badana ha ku daro intaas naga hortaagan haddaan fahmno hebel inuu badda gaday barigana uu soo u daahayn oo iska qabanno oo isku afgarano oo wada fahamtaan wallahi iyo billahi idinka iska daay awlaadina loo shaqaynaya ilaahay haduuna maya oran awlaadina loo shaqaynaya khayraadkina la idin soo saaray idinka waxaad ku raaxaysan doonaan nolol raaxo badan leh ma u sugan kartaan ma u kaadsan kartaan aar u kaatuyin marka u kaadsada dhalinyaro dawladda garab istaaga dadka propagandada meelahan ka wada oo qabiilka u shaqeeya oo al-shabaab u shaqeeyo qiiqa isku qarinaya anagu aan garanaya qabiilka hadda waa sii daba yar yahay waa laba groupka u shaqeeya waa groupka al-shabaabka u shaqeeya hadday isgaarsiin tahay hadday ganacsato tahay hadday siyaasiin tahay al-shabaab group ba u shaqeeya dawladuna waa inay groupkaas daba gashaa oo ciidamada dabagalku groupka waa inay naga soo qabtaan xilnibaanay leeyihiin cid walbay ku jiraan al-shabaab dadkii u shaqayn jiray waa nagu jiraan dadkii imaaraadka u shaqeeyana waa nagu jiraan labadaa qolo qabyaalad inta kale waa laga nabadgelaya labadaa qolo dadka ku duulahaya oo qabyaalad hadday rabo boorka isugu qarinaya oo lacagtan xaaraanta iyo kuwa qaadanayo gaajada ay u goysay oo lacagta xaaraanta oo laalushka ee baraha bulshada ku shaqaynaya waa inaan anaga laftigeenu dabagalnaa kuwaas oon iska qabanaa horta baraha bulshada kuwa jooga waa inaan dabagalnaa oo dadka weliba baraha bulshada oo wadaniyiinta oo wariyaasha waa inay dabagalaan qofka ku soo qoro propaganda aan wax kama jiraana oo dawladda iyo macnaha shacabka lagu kala dhaawacayana waa inaan looyar u qabsanaa waa inaan maxkamad la istaagnaa maxkamad inaan geyno weeye wallaahi waa inaan maxkamad geynaa lacagta ayuutaan u galayna horena waa u eri waa ogolaa akoon noo fura lacag baan ku ridanaynaa dadka baraha bulshada xasarada ka wadaan isaga qabanaynaa dawladda ila xasarada ku wada annaga I don't care qofkii khayra caaya qofkii farmaajo caaya qofkii taabad caada qofkii maaragta beela caaya qofkii maxay caaya maxay isha Yusuf Garaad I don't care qof doontiin caaya wasiirada qofka shakhsiga waxa doonta ka sheeg xor baa tahay laakiin dawladda
iyo qarannimadayada iyo isku horkeenka bulshada qofka ka shaqaynaya waa iska qabanayna waa iska kiin qabanayna kuwaasoo ogaada cidaad u shaqaynayso jeelka ka soo saarto marka ama dibad joog ama dalka joog I promise waana iska qabanaa waana iska kiin qabanayna insha Allah marka ummadda Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed waa dargaysan wixii shaki ku jiro horta shaki uga hayn ka baxo warama dargi weydaan oo reebel dhibanumka qabiilka aad ku tahay isaga tag waxaan ka ballan qaaday waxa qabiilkeena jirta ka badan inaad dawladdaada ka hesho adoo magac ku leh adoo ku maamuusan adoo ku karaamaysan adoo ku sharfan adoo ammaan ku haysta yaad helaysaa dawladdiina la shaqaysa dhalinyaro meesha ka istaaga hadduu qooyo ka yimid iyo hadduu koonfur ka yimid kulligiin isku mid baa tihiin maamul meel idinku soo xirtaan waxba idinma qabanayo waxba idinma tahay haddayba u darayo kuwii Soomaaliland waxay ku soo jahayeenba xuutiyiinta iyo balaayadii bay ku soo jahayeen waqooyi ilaahay naga qabtay marka waxaan laga fiirsan Soomaaliland waxay tiraa hadal aan fiirsi loo oran iyo caana aan fiiqsi loo dhamin labadu waa kugu fogaadaan feerahaga wax yeelan waxyaabaha la iska saxiixayo dawlad baan iska nahay inta la iska yiraahdo la iska duugahayo oo aan laga fiirsan dhibaato dambe inay keentaa suurtagal oo laga ma soo waaqsadaan nimankan waqtigoodu waa qaateen niman wada waayeelaa weeye dawlad fiican iyo dastuur iyo nabad bay wax ku soo barteen rag ay isqabteen ciilkood bay adduunkoodan u baabi'iyeen Soomaaliland oo haligeen Soomaaliland waxa la yaabo waxay ku faantaa dawladda dhexe anaga ridnay habar gidirna waxay leedahay anaga ridnay yaa biladaas marka qaadanayo horta kow biladaas cidii qaadanay horta labadooda hay soo Israa'iil ha galaan cidda labadii horta dambigaas cidii la xaqirato hadda laba nin baa qolo waa qirato waxay anaga ridnay hadday rideen waxa rabnaaba waa fiican yihiin waxay rideen waxay nooga bedelaan baa xisaabteeda ka rabnaa oo aanu haysanaa marka waxbaan duminaa horta faan baa laga dhigtay wax laga faano weeye wax lagu faano maaha waxbaan burburiyo wax lagu faano maaha waa wax laga faano waxbaan ribalays gareey waa dhigi kartaa waxbaan bedelay wax ka fiican baan ku bedelay wixii hataa hooyaalay hadaadan wixii wax ka fiican ku bedelin horta waxa maad keenin laakiin waxbaan burburiyay sida wax loo burburiyaa naqaanaa oo ku faanaya wax laga xishoodo weeye adduunka wax laga xishoodo waa crime weeye ninka hadda waxa ku hadlaya maxkamadda adduunka la geyn karaa wallahi baan ku dhaartay waa dambi qiraal ah oo afkiisa ka qartay sababta ummad dawlad haysata caafimaad haysata iskuulaad haysata nabadgelyo haysata oo macnaha safety-gooda waxooda damaanad qaaday ay haystaan ayay ka burburiyeen waxay ugu bedeleen baarbur iyo baaba iyo baduhu inay laqaan iyo magafa inuu kawaanka saaro iyo xabisyada inay ku uraan way ugu bedeleen weli waa ku faantamayaan dad baa ku daba taagan oo ku jecel wax la xisaabtamayay waayeen subxaanallah waa wax ilaahay ka go'ay qofku markuu ilaahay ka furtana fooda iska dhigayaan walaahi weli yaraan habar oo hayo hadda Yurubta ka tagay baa wuxuu ugu yiri kitaab wuxuu ku dhumaray xataa masaajidaha ku jirin fooda madad wallahi wax islaamiyada joogin bi Soomaaliya xamar wax islaam ma joogan bi sababtoo ah dad musuq laga yaabay iyo sida ay u dhaqmayaan marka ilaahay laga cabsado oo diinta loo soo laabto ciqaab ilaahay baan haysata reebel qabtooy iyo qof aan waxba dilin halkan mid ku dilay waa magaalada geeskeeda kale iyo adduunka geeskiisa kale in ay hayb wadaagan lagu dilay waa carooyinka ilaahay bay ka mid tahay caray ilaahay baa lagu dhacday ilaahay aan nooga naxariisto marka sida lagu jiro waa in laga baxaa dhalinyarada waxaan kula dardaarmayaa meel ay joogaanba qabyaalad waad aragtaan qolo walba hoosteeda ka cabtay waad aragtaan idin tusaale kale uma baahnidin waa saas isu sifiiqaysaa saas isu fiiqaysaa ma hakataba marka waxaan ka codsanaynaa magaca la idin yaqaano oo qabiilkiina waa Soomaali wax ka sokoya adduun idin yaqaanaana ma jiro waxaan lagu aqoonna hadda inaad iska dhigto ku taagnaata waa ku doqonnimo Ethiopia lagu leynayaa ma xabaal waradeed baabuur baan lagu soo galay hal god baa sidii buushii baa loogu sheegay wadarkiisaan waa Soomaali wax meelba ku sicsan waa Soomaali dawlad maankan haysan silcas maana qabin runta marka laga hadlo caruurta waliba dhalinyarada waxba ogeyno wallahi hanan silcas qabin oo aysan Kenyaati iyo Ethiopian midna uusan ku dhicin hooyadina ku dhicin qof Soomaali inuu saa u dhibaateeyo baqdin ay ka qabeen dawladdeeda xoog badneed Allah noo deystay oo Ilaahay ha u naxariisto oo hogaamiye Maxamed Saad Barre iyo rag kale oo fara badan oo adag oo ay balaayadu naga burburiso masiibada u baxday wallahi ana qof ku dhacay hadda koor ma waxa la yiri waxa xira ay ku xareeyeen NFD kuwan Kenya baa xira ku xareeyay oo dad inay dhibaateeyaan Allah u naxariistay Maxamed Saad Barre wuxuu yiri hadina daqiiqada gudahooda hadayna albaabka ka ooda ka qaadin buu yiri sarta darafta ilahan ku tukanaya oo sar dheer oo macnaha Kenya downtownkeeda markaa sarti ugu dheer bay ahayd macnaheedu qof saa looga kaadkaadinayo waliba Ethiopia dagaalkeeda hadaan laga soo bixi lahayn oo aan gaala isku kay tagi lahayn
oo ku guulaysan lahay wallahi iyo billahi dhulka Kenya inaan dagaal loo galan fartay naga saari lahayn Kenya wax ka fulaysan male maanta waxayna wax walba waa noo jabisan cadab iyo nacab baan loo jabiyay rag baa ku faantamay annaga jabinay dhibaatada Soomaaliya 27 sano ay galiyeen bay ku faantamayaan cid la xisaabtamaysa cid horday dhahaysan aan la arag iyo cid maxkamad ku saaraysa dadka marka annagu dawlad xoog lahaan ahayn adduunka jirjino waxa googoynaya macna networkiga aad u slow gareynaya marka waxaan ku soo gabagabeeyo wuxuu bal maxay qabyaalada qiimo leedahay oo qarannimo taraysa aan qalooc ahayn way kala qubtaa kala qaybisaayo waxay ku qotontaa qardoof iyo qaraar midka ku qarwaayo aan ka quusano aan midka ku qarwaayo aan ka quusano aan ku qancinay qabso waaladan qaladkaaga saxo qabyaaladii damiir iyo macnaha wax tar ah ma leh wuxuu qofku u dagaalamaya ma yaqaan reer hebel baa wuxuu iska soo ordahaya maalin walba mid baa dhinta boqolaal baa dhimata maxay ku dhinteen cid isweydiisa ma leh kiil dadkan haligay oo loo hiilinayay bari waa ka hiilinaya uma hiilin marka bari ku hiilinayay asaga waa ka hiilinaya maalin walba mid buu dhowr boqolaal buu xoogaa koox ku qoranaya kuwaas horta gam laga soo siinayo soo dhamaanaya wax uriyaan iyo wax dhintay noqonayaan maalin walba mid cusub u yeeranaya mid cusub cid weydiinaysa makti iyo kuwii uu daraadii u baaba'ay cid kala xisaabtamaysa cid weydiinaysa male hooyaa gablamaysa ilmaha agoontoomaya mid baa walaal beelaya nobody cares kiifiyow baa kooda ah siyaasi kiifiyow baa kiisa ah maalin dhexdaas waataan arkayay horena waa u sheegay nin labada gacmoodba kow yihiin oo barakacyaasha xamar ku jira oo dagaalkii 1991 daarad qabtaydo ku gacmo beelay hawiye maanta meel kuma oga why maxaa barakaca saacadan galiya isagoo gacmala oo aan xaar iska dhiqi karin oo adduunka ku silcay adduunka qofka geerida waxaan u qabnaa qofkii dhinto inuu janno tagayo laakiin kuwa dhintaaba kasii daran sababta qofka nool haba silcay hadduu tooba keeno ilaahay buu leeyahay marka wixii dhintana inay silca ku dhintaan wixii nool silca ku nool yihiin kii dhinta waaba in ka indha qarsada midka nool oo silca ku jira imagine muxuu maanta muxuu ku shalay kii ninkii shalay hawiyaha Allah baa barina dilaya oo maaragtay ku soo jeestay shalay furinta ay ku wada jireen qabyaalada diin male mana dhamaato waxba qabto weeye inkaar qabto weeye waa inkaar qabto marka ku dara sugbal hadda aan fiiriye waan isku dayay inaan idinku daro laakiin hadda waxa ku dardarkiisana ma garanayo tag friend aniisaan taageeray hadda waa isku dayaa bal hadda suga tan ku dar invite Maxamed Cigaal invite JJ invite Cabdiqaadir Sugulle wala invite gareyn insha Allah Kuraad Faarax waa invite gareeyay marka Xawa Ciid Aniisa Xawa Shukri marka intaan ku dardari karay waa ku daray marka waa iska waqtiga geedka islowga iga noqday marka isku soo wada duub dhalinyarada waxaan ku baraarujinayaa Soomaaliyeed ilaahay inay ka cabsadaan cara ilaahay baa ku dhacday Soomaaliya caradaas inay ilaahay uga tooba keenaan inay dawladooda garab istaagaan inay aayahooda ka shaqeeyaan qabyaalad Soomaali ka sokaysa inay meel iska dhigaan Soomaali qabiilkiina waa Soomaali baa tihiin qabiil kale oo ka sokeeya waa halaag iyo cadaab iska ilooba kan dambiilaha oo qaran dumiska xildhibaan ha noqdo oo mooshin quutaha xildhibaan ha noqdo siyaasi kale ha noqdo shacab ha noqdo ganacsato ha noqdo kuwa dadka u xiga dhalinyarada dadka u xigtaahi waa inay soo qabataa dhalinyarada dadka u xigtaahi waa inay qabataa yeyba la sugan cid kale dhagta ayagoo ha ku dhageen xildhibaanada mooshinka quutana ha la xisaabtameen kii aan u hoggaansamin ha iska bedeleen odagana dhagta ha ku soo dhigeen raaxib anaga kii qarankeena ka shaqeynaya kaayaga ah dhahaya ka xisaabtama dabada ku dhaga iska ilaaliya iska celi waxba idin ma aha guriyaa qabyo u ah idin ma shaqeeyaan idinka kii aad aragtaan runta u sheega nooma noo shaqeynaysa kitaabka ilaahay aad beenta ku marteen ba kale idin wada hayee haddii kitaabka adiga nasiibkaasaad u martay iyo meesha ilaahay kaala xisaabtamay laakiin annagu shaqan kugula xisaabtamayna qarankayaga iyo dawladayda qofkii ka hor imaanaya xildhibaankii ka hor imaanaya albaabka ka dago
namana matalo codkiina waa inuu shaqeeyaa dhalinyaray codkiina ha shaqeeyo dowladda idinkaa xukuma dowladda la xisaabtama xildhibaanada la xisaabtama hay-adaha dowladda xaq baad u leedahay la xisaabtantaan dowladdiina u istaaga xigtada iska ilooba xigta aan Soomaali ahayn ma lihid maalinkaad albaabka ka Soomaali saa uga xuduudda uga soo baxdo Soomaali baa tahay inaad xigtadaadu Soomaali tahana taasa ku baraysa oo ku sheegaysa taa ku ogaada fadlan wal ihsaanak waxaan idin kaga tagayaa ilaahay inuu Soomaali xaq waafajiyo iimaanka ilaahay inuu ku sugo cadawgana kuwii iska kaashada inuu ilaahay ka dhigo baylaha bay galeen baylahdaasna ilaahay inuu ka soo nabad aruuriyaan ilaahay ka baryaynaa meelaad joogtaan ummadda Soomaaliyeed midnimaan idin dardaarmaya wada jir baan idin dardaarmaya dowladdiinoo dhisataan oo garab istaagtaan baan idin dardaarmaya dowlad hayin ah oo idin adeegaysa oo maafiya ahayn oo idinka adeeganayn oo idin adeegaysa maanta ilaahay idin siiyo ayaan baad leediin waa daba qabasho ilaahay idin kugu talagalay weey garab istaaga kan la shaqeeya qabiilka iska ilooba kan dadka kugu xigo oo mooryaanka soo qabo celi adigu sharciga horgeey haduu ku maqli waayo wuxuu shaqeeyay dawladda hay'adaha amniga la qaybso oo la wadaag waana rajaynaya inay arintu u shaqeynayso ilaahay idinkiis assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh khayr waaran ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan ilaahay uga baryaa